Hay'adda NRC oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo ayaa maanta waxa ay ku wareejisay maamulka degmada Kismaayo qalab loogu talagalay in ay ku shaqayso hay'adda dhulka Jubbaland kaasi oo baahi weyn ay u qabtay dawladda hoose ee magaalada Kismaayo. Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed oo ah madaxa waaxda sharciyeynta dhulka ee hay'adda NRC ayaa ku wareejiyay qalabka maamulka degmada Kismaayo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay taariikh 5 bishii 2020 inaan ku wareejino agab ama qalab loogu talagalay survey equipment la yiraahdo qalabkaasi oo wax badan baahi badan oo ka jira Kismaayo dabooli doono qalabkaasi waxa aad u isticmaali doona Jubbaland Land Authority qaybtiisa dhulka alaabtaasi marka waxaan toos ugu wareejinay duqa degmada Kismaayo ahna meeyarka muxuu ahaa magaalada Kismaayo marka aad baan ugu faraxsanahay gudoomiye soo dhaw. Hay'adda dhulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka wada hanaan ku cusub magaalada oo loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo guryaha iyo dhulka dawlad goboleedka Jubbaland kaasi oo wax badan ka taray dhinaca sharciyeynta guryaha. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajilic oo qalabkan ka gudoomay hay'adda NRC ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin ka maamul ahaan qalabka maanta lagu wareejiyay kaasi oo dhinaca sharciyeynta dhulka ka caawinaya dawladda hoose ee magaalada Kismaayo. waxaan saaka halkan u fadhinaa inaan qalab kala wareegno hay'adda NRC qaybteeda ku sugan magaalada Kismaayo. qalabkaas oo aad arkaysaan qalabka surveyga lagu sameeyo oo loogu talagalay qaybaha dhulka ka shaqeeya ee degmada Kismaayo. waa ku faraxsanahay runtii waana baahi aan anagu ka codsanay hay'adaha inay noo gadaan alaabtaas muhiimka u ah saa ogtiin waxa ka socda magaalada Kismaayo barnaamij dib u habeyn dhulkii iyo barnaamij dhulkii dib u dhis iyo dib u qaabeyn iyo master plan baa ka socda qalab kanina qalab qayb weyn ka geysanaya oo wax ka taraya waay waxaan mahad celinaynaa runtii hay'adda NRC oo iyadu shaqooyin fara badan oo kala duwan ka haysa magaalada Kismaayo. waxay noo sheegeen qalabkan dhaqaalaha ku baxay inay bixisay ama ka qayb qaadatay UNHCR. dabcan waxa waaye waa u mahad celinaynaa UNHCR-na doorkay magaalada iyo hawsha ka socota ku leedahay ama ka qaadatay waa ognahay. barnaamijkan marka waxa waaye qalabkan qalab Jubbaland loo gaday waaye wasaaradda arrimaha gudaha soo maray ka bacdina waxa loo soo gudbiyay degmada Kismaayo oo meeshii laga shaqeyn lahaa. dabcan waxa ka shaqada lagu qaban doona waa arrimo dhul waxa ku shaqeyn doona qaybaha noo qaabishan dhulka oo ay ka mid tahay shirkadda Milestone oo hadda gudoomiyaheeda nala fadhiyo oo annagana ah company Jubbaland heshiis la gashay arrimaha dhulka inuu ka shaqeeyo farsamo ahaan shaqa iyaga qabanaya oo ku qabanaya hawshaas oo anaga hadda iyaga iyo gruubka iyaga dhulka waa isla shaqeeya hay'adda dhulka oo xasalina kala joogo iyo ruuxeedu qayb ka tahay shaqada waxaan rabnaa marka hadda la idmo alaabtaas waa ku mahad celinaynaa waa la wareegnay waxaanu rajaynaynaa inaanu ilaashano xafidano ku shaqaysano sida ugu quruxda badan kana mahad celino inaanu maxaan ku yiraahdaa deeqda muhiimka ah oo runtii aan dareensanahay inay lacag badan ku baxday inay saakana soo gaarto aan kala wareegno aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsan yihiin cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan rajaynayaa haddii alla idmo qalabkaas in shaqadii loo idmaday oo loo keenay lagu qabto